fadhinaayo aynu shirkan jaraa'id u qabanay waxa weeyaan arrin weyn oo culus oo daraata ka dhacay kirilka ama gobolka Soomaalida Ethiopia dadka halkan fadhiyana waxa weeyaan oo ay ka kooban yihiin dad Ethiopian oo jaaliyada Ethiopianka kamida oo beelweynta dir kamida weey dadkan odayaashoodii iyo madaxdoodii talabaad waxaanu cambaaraynaa dirkaas oo aanu fariin u direynaa dawladda federaalka Ethiopia ee aanu leenahay dawladda federaalka Ethiopia arrinka waa inay si degdeg ah ay uga qabataa nimanka dalkaasi geeyay waa niman liu police leeyahay liu police kuna imka wuxuu ka kooban yahay kii hore Cabdi Ilay sameeyay iyo ONLF oo ku biirtay kii hore Cabdi Ilay sameeyay iyo ONLF oo ku biirtay taa macnaheedu waxa weeyaan waa reer gaar ah reerkaasi halkaasi waxa dilka uga geysteen haday u turayaan dadka maatada ee abaartu hayso oo ay dadkoodii way u turi lahaayeen laakiin dadaan u turaynin weeyaan dadka gacanta ka gadanleysay Ilaahay waxaan u weydiinaynaa in jannadii uu ka waraabiyo adduunyadu waa maalmo waxaan Ilaahay weydiinaynaa in Ilaahay dadkii ka geeriyoodeen beelweynta direed iyo gaar ahaan meeshii gaarka ahayd ee madalugay ka soo jeedeen dhamaantood waxaan u direynaa taasi waan uga direynaa halkan iyagana waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu maalinta Jimcaha ee Ramadaan lagu jiro jannadii ka waraabiyo taasi waa tii taasiyaha waanu ka taxsiinaa aadna waanu ka damqanaynaa runtii sida professorku sheegay odayaasha halkan isku yimid xaalad abuur maaha oo yaani cid gaar ah oo usan ma jir cadaalad darrada meesha ka dhacday baa dadka dhibaysa kala qaybina sumad looma kala yeelay kolba cadaalad darrada meesha ka jirto baa la abaaraya halka waxaan u aragnaa cadaalad darrada ka dhacday caatiba ka dhacay dadka waxa lagu laayayna waxa weeyaan runtii xuquuq ay doonayeen oo ay u lahaayeen deegaan ahaan iyo dhalasho ahaanba oo ay ka tirsadeen dawlad deegaanka Somali State oo ahayd in lagu xalliyo dawladnimo iyo Soomaalinimo lagu xalliyo ahayd ayaa runtii xaqoogii lagu xasuuqay gacan ka gardanay weylaysay runtii inta ay awoodda dawladda Somali State gacan gaar ku jirtana saasun bay ahaanaysaa anagoo ka murugaysan arrinta ka dhacday deegaanka kilalka shanaad gaar ahaan degmada Awbarre qabalaha Xajiin arrintaasi dadka shacabka lagu xasuuqay ee sooman ee ku jira bishii Ramadaan ee barakaysan arrintaasi warwar badan iyo naxdin badan iyo aad bay noo damaday Mustafa Cagshar inay dhibta xalisay hayde inay shacabka xasuuqdo ma yahay kuwa xasuuqayna waxaan leeyahay awalba dhinac bay haayeenoo liu boolisku dhinac reer quray haayeen iminkana waxa lagu daray markii dambe dhinac isla qayb kale oo dhinacii oo magac reer sheeganayso oo la faayaa lagu daray waxaan leeyahay kuwaasi ma matali karaan ummadda dhexdhexaadna uma noqon karaan ee waxa loo baahan yahay ummadda deegaanka degan inay ka wada dhex muuqato oo dad cusub oo dadka matalo oo u turo oo dhibtooda damqa ayaa loo baahan yahay in lagu dhex daro dadka gacanta ka xaqdaran dishay Ramadaan talaayay marka ugu horeysa Ilaahay waxaan uga baryaynaa gacanka xaqdaran baa dishay inuu jannatul firdaws ka waraabiyo oo hoygooda ka dhigo marka xiga waxaan ka taxsiyadeeynayaa dadkii ay ka dhasheen beesha dir madaluu dir qoysaskii iyo qaraabadii ayaan ka taxsiyadeeynayaa waxaan leeyahay samir iyo iimaan saadiq Allah idinka siiyo iyo awal khayr qaba taa waxaan u dhaafayaa dadka waxa laayay dad direysita oo direys dawladeed sita oo liu bilaysa iyo ONLF ku biirtay ayaa dad aan hubaysnayn rasaas mariyay oo xasuuqay waxay keentay xanuun aad u fara badan iyo murugo bay ku beertay oo nagu beertay waxaan leeyahay
marka ugu horeysa dowladda federaalka waa inay faragelin ku samayso faragelintay ku sameynayso waxa ugu horeysa in ciidankaas sida uu u dhan yahay laga qaado area-da haddaan deegaanka ay joogaan laga qaadin oo aanay deegaanka laga qaadin oo aan ciidan lagu bedelin federaal oo jooga mushkiladii halkii bay taalaa dadka laayeenay wali area-dii iyo dhulkii joogaana oo nabadgelyo ka sii dhacdana waa waxaan jiri karayn waa aqalka beesh jaarso marka hore waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxaan tacsi tiiraan la u dirayaa dadkii masaakiinta ahaa ee lagu laayay ee gacanta ka gardaran ay ku laysay qabalaha xajin ee hoos yimaada degmada aw bare samiriye iimaan allah idinka siiyo in ehelkoodii iyo qaraabadoodii iyo dhammaan madaluw dir iyo dir dhammaantiiba waxaan leeyahay samiriye iimaan allah idinka siiyo waxaan raacinayaa dadka bini aadankii afkaar uu yeelan karaa waxna wuu codsan karaa laakiin dawladda markaa mar walba halkaa meeshaa joogtaa waxaa la doonayaa inay si ay uga taliso xal ku jiro in looga taliyo ayaa loo baahan yahay dawladda dhexe ee federaalka ah waxaan leeyahay dadka masaakiinta ee meesha lagu laayay sida ugu dhaqsaha badan dawladdu waa inay u soo faragelisaa oo sida ugu dhaqsaha badan ay xal ugu heshaa dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan leeyahay Mustafow de shalay dulmidiid baad adigu raggii sida badan uga ololeynay dulmigii ninkii adiga ka horeeyay baad ahayd maantana waxa ay muuqday inaad adigii dulmigii ku dhaqaaqayso kada dadkuna ha ku sinaadaan inta aad xal helayso xabadda daa haridin xabad inta aad xal helaysan lahay dhamaantaya beelweyntii direed waxaanu leenahay cod dheer waliba ku leenahay war intaad xal helaysan xabadda joojiya haddaan sidaa la yeelin way xumaan doontaa oo farahay ka baxaysaa